السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قروح بدن له مركل كوسا دوادا يعكم ميديا شو مع المها حوا وإن كير مشغول صناعي بلسة هذا أيام كم باك صور ضحي وصور لابتي ما شاء الله جاكرتا واجوغا واي كنا جاكرتا نوي ماضي دمان أصحابتا وسلامتين كل يلاب كل أنو فرحسنا ديب صور لابناي ما شاء الله يوتيوب كيعكو بريا وحبلا مصورين حوغا waxaa iska jirtay busy yar laakiin maxaa maanta u imaanay waxaan u imaanay arinta baabajay xaalad baa kacsan xaaladaas darteeda maanta aan dalab u soo bilowga sheekada iyo dhamaadka ana idin hayo yacko idin haya maxaan ka leenahay horta hore xaalada baabajay iyo wiil cirka isku shareertay heer waxay maraysaa hanjabaad waali ah meesha ay ka dhacaan sax ma aragtay baabajay horta hore qofka bini aadanka ah ma qaldamo waa ilaahay qofka bini aadanka waa qaldami karaa sax macnaha ma sidee wax u jiraan mase sideen wax u jirin sidee wax u jiraan sida la sheegayo waxaa la rabay arrintan baraangi ahaan macnaha bulshada wejigeeda ma aragtay ka sii jeedi walaalow baraangi sameey afdaara kale noo bilaaw marka baabajay si qaldan oo waxooga horta lagu hadlay si qaldan oo u hadlay wixii ma aragtay arrin markay taagan tahay arrin qadiyad markay taagan tahay arrin qadiyad ma loo baahna in aad dhexda ka gasho haddaad gelaysana waxaa loo baahan yahay maslaxo inaad u gashid inaad maslaxayso dadka aad kala maslaxayso sax maslaxa inaad u gashaa fiican markii arrimo kale caadi ay yihiin brangi waa magaalkan dhan waa laga wada sameynaya caadi waa taas wax weyn maaha brangi waa samayn kartaa laakiin arrin qadiyad markay taagan tahay baabajay waxaad ku qaldan tahay walaalkeena adiga in aad dhexda ka istaagto arrin qadiyad okay markaa baabajay waa qaldantay gabadha waaliday leedahay ehelay leedahay walaalay leedahay qaraabay leedahay wax walba ma aragtay waa loo kula gudboonaan karaa haddaa hadashay hadalkaagii xoogo xitaa hadalla yar yar ku dhex jireen oo qofka bini aadanka dirid ku taabanayo marka apologize-aad ka dhiibay annaga ahaan waxaan ku leenahay apologize ka dhiib walaalow waa qaldantay qalad waa ku jirtaa ma kugu taageeri karno midda kale oo meesha taalaa waxay tahay wiilo walaasheediyey adigana haddii ay jirto adiga baabajay in go'aankaas iyo ma aragtay afgaaraas isla gaarteen in aad adigana ka soo hadasho wixii jira aad dadka u caddayso sida ehelkaaga ee qaraabadaada iyo dadkii ma aragtay adiga ku taageersanaa ee u degaan say u degaan adigana waan kaa codsanaynaa inaad soo hadasho oo soo fadhiisato ma aragtay wixii jirana aad meesha ka caddayso aniga kaliya hadalka inaan ku dheeraad waa laga fiican yahay jakarta dhinaciiga fadhiyo jakarta adigana wixii aad ku darsan lahayd oo ku qaado horta waxaan rabaa inaan xoogaa hordhac idiin bilaabo sheekada say ku bilaabatay iyo meeshay soo gaartay horta sheekada waxay ku bilaabatay waxaad ogeydeen wiilo in muuqaal youtube ay duubaysay muuqaal tiktok ha wiilo muuqaal tiktok ay duubaysay muuqaalkaas tiktok wuxuu ahaa muuqaal ay ku aflagaadeynayso madaxweyne farmaajo oo ay dhahayso dib uma dooranayno hana dhaafo 4 sano soo socotana ma rabno haddaan qaati ka taagnayn taa fikirkeedu ahaa si dhalinyarnimo ay u hadashay maxay la kulantay waxay la kulantay in youtube channelkeeda 14,000 oo qofood unsubscribe ay dhahaan oo la dhaho waa qabyaaladiisa oo la dhaho waa gabar mataqaanaa madaxdii dalka caynaysa tii waxay sababtay inay unsubscribe badan ay ku weyso oo shacbiyad ay ku weyso waxay samaysay wiilo muuqaalkaas apologize raaligelin bay ka bixisay muuqaal xigay soo duubtay oo dhahayso gabar baanahay waan gafay waa khaldamay waxaan jeclaa asxaabta inay dib igu soo laabtaan bes challenge buu ahaa no problem ayadana dhibaato ma lahan meesha ku dhammaadeen wixii bilowga ay duubtay iyo wax gadaalay kasoo duubtayba waxay ahaayeen mataqaanaa ku saabsan social media halkaas ku dhammaadeen laakiin weli waxaa ayada kusii socday unsubscribe dad badan baa ka digayay ayada waxay wacday baabajay waxay tiri baabajay walaalo waxaan u baahanahay in dadkan sheekadan iyo mashquulka igu mashquulsan yihiin dhinacaad u gadiso i caawi
baabajay wiil waa laba qof oo saaxiiba oo walaalo ah wuxuu yiri walaalay maxaan ku qabtaa maxaan ku sameyn karaa dadkan way kugu maqan yihiin farmaajo isaan waa kan waayo adiga dhahe maxaan ku sameeyaa waxay tiri sheeko abuur baabajay sheeko abuurtii asagii sheekadii waxay ka noqotay inuu dhaho muuqaal YouTube uu dhaho wiilo anaa ku soo cambixiyey anaa ku soo saaray anaa sidaan ku yeelay aniga ma taqaanaa maanta ummadda kugu soo daray adoon waxba ahayn هذا واحد يعني موقال يعني إسلويني يكبر واحد نوعاس أسأل لكن سيدو واحد ليو واسي وطلق لي إن ويلو يعني لو جسوا جديو أنا سبسكرايب يلا لو وضع ولا ده بابجي ويلا حوها إسفوك عسنة بل محاي يعني ويلا وسوا جوبته مقال كيوتيوب هلا ده وضع ضد بدن هاي شو أسأل أنا متقنا يعني حماسة نوعاس إنه كعيور بي لكن حالة دويس بدل شيء أسأل محوها صومالي بدن oo meel kala duwan ka soo jeedo iyo dad ayada ma taqaana ku qabiil ah wiilada ayaa baabajay u caga juglay social media waan ku dilayna kanaan ku yeelayna saan baa noqonaysa yani xaaladii way adkaatay risk attack buu ku jiraa oo dhanka qabiilka ah anaga marka waxaan rabnaa baabajay iyo wiilo waa dad walaala way isog yihiin ayada shalay khaladkii gashay way gashay way cafis bay dalbatay asagana waxaan uu samaynayo ayada darteed buu sameeyay laakiin hadalkii baa hadal weyn noqday uu isgadiyay waxaan ka rabnaa baabajay in YouTube intuu soo fadhiisto uu dhaho wiilo waa gabar walaashayda waxaan isla ogeyn ma sameynay laakiin de hadalka maadaama saas oo u dhacay Soomaaliya saa u fahmin nin isla weyn nin kibir badan mi walaashayda ha iga raali noqoto in uu dhaho waa muuqaalka kali ah ee laga sugayo maanta asagana uu ku day karo waliba si degdeg ah loogu baahan yahay sababtoo hadda xaaladdu waa kacsan tahay hadduu saa u sii aamusnaado riski buu ku jiraa waa update-ka ugu dambeeyay aydan kaga hayno labadooda wax barangii uu ahaa uu rabay dadka ayada ka dhumay inuu soo celiyo laakiin asiga warkiisii baa si kala loo qaatay wuu isdhigay waxa uu duubay baa war weyn noqday marka baabajay waa saaxiibkeena xarajeynina xaaladda inuu dajiyo wiilana xarajeynina in ayadana soo hadasho hal mid kalena waa ku darsanaa macnaha baabajay wasan hor uu kugu sheegay marxalad qadiid hadii taagan tahay ha ku fududaanin weligaa ha ku degdegin haddana waa ku qasban tahay oo balajaas inaad ka dhiibto raali gelin aad ku raali garaynayso wiilo waa dad isla ogtihiin waa wado laakiin ehelkeeda waa inaad ku raali garaysaa baabajay midda kaleeto oon dhahayaa waxay tahay waxaan arkaya muuqaal daahir calisow iyo baabajay hadallo dhex maraayaan kule aan hadallada ma qaadanayo mana u baahina hadallada inaan soo qaato balse daahir calisow waa libaax waa lajanka social media lajan waxaan ku leenahay aan ku qabsanno arrintan annaga lugaha kula jirno annaga baaritaankeeda wadno arrinta annaga sidii wax lagu xallin karo inaan ma aragti ku xallina rabno libaaxeena aan ku qabsanno bunjeer ka raali noqo baabajay arrintiisa annaga xalinayno hubka hoos u dhig aan ku qabsan aan ku cishan intaasna waa fariin ku socoto daahir calisow fariin xaaladda had degto xaaladda waxay ku degi kartaa waa sida sheegnay lixdiisa lixaad ma qabo reer buu biilanayaa waa nin miskiin ah war arrintan waxay ku degi kartaa wiil in ay soo fariisato walaasheena waxaan ka codsanaynaa in aydan soo fadhiisato wixii jira ee meeshaan ka caddayso si dadkaagii xanaaqsanaa ee u qaboobaan baabajayna oo balajaas uu ka dhiibo uu maslaxeeyo ehelkii wiilo intaasaan kusoo gabagabaynaynaa arrintan wixii soo kordho muuqaalada xigana ilaa ay ka heshiyaan annaga kama daali doono kamana caajisi doono insha allahu tacaala I'm come back waad in soo laabta asxaabteeda subscribe like wax walba hadii ku qabta jaga idin kun nahay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh